soo dhawaada asxaabay waxa uu leeyahay wadan kastaaba ciidamo adag oo nidaamsan oo haysta saanad dagaal oo kala duwan iyo tababaro gaar ah laakiin ma ogtahay inay dunidan jiraan ciidamo aad u khatar badan intaynu muuqaalkan ku guda jirnayna waxaynu ogaan doonaa macluumaadka ciidamo aanad weligaa maqal aragna ee ku soo dhawaada liiska ciidamada adduunka ugu khatarta badan intaynan muuqaalkan u guda galin waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe soo gelinaa shan Jaeger Corps waxaa la aasaasay quwadda gaarka ah ee wadanka Denmark sanadii 1785 waxaana xilliga loo bixiyay magacyo badan oo kala duwan laakiin sanadii 1961 waxaa loo bixiyay magaca Hunter Corps of Zealand askartan ciidamada galaysa waa kuwa si gaar ah loo xusho walibana la sii mariyo tababaro kale oo gaar ah intii u dhaxaysay 1961 ilaa 2008 waxaa kaliya ku soo biiray ciidamadan sanadada badan aasaasan 350 askari oo kaliya waxaana loo diray missionkoodii ugu horeeyay sanadkii 1995 howlgalka oo ahaa mid aad u xasaasi ah iyagoo 6 nin oo iyaga kamid ah markaas soo fuliyeen howlgalkii lagula dagaalamayay argagixisadii markaa joogtay kana dagaalamaysay Bosnia iyo Afghanistan waxaana 2004 askartaas soo halgantay la guddoonsiiyay abaalmarino gaar ah tababarka aad qaadanayso haddaad doonaysid inaad ka mid noqoto ciidamadan waa mid aad u adag waxaana ka mid ah 6 cisho oo aad dabaal ku jirayso iyo 6 kale oo aad soconayso waxaanay ku tagaan meelaha ay howlgallada ka fulinayaan lug iyagoo ku soconaya sidoo kalena waxay ka dhex gudbaan marinada biyaha sida dooxyada halista badan iyo badweynta waxaana ku waajibay in xilliga loo qabto ay ku tagaan meesha loo diro iyadoo loo tababarayo sidii ay ula macaamili lahaayeen khatar walba oo soo wajahda waxaana ciidamadani dhowr jeer oo hore tababar la sameeyeen ciidamada gaarka ah ee wadanka Mareykanka ilaa maantana ciidamadani waxay ka kooban yihiin 150 askari oo kaliya haddana si waaliya u dhisan oo u tababaran waxaanay sidaa ku soo galeen liiska quwadaha ugu khatarsan caalamka Marine Commando Force waxa lagu tiriyaa ciidamada Hindiya qaar ka mid ah ciidamada dagaalka ugu adag adduunka waxa sidoo kale loo yaqaan Marcoska Hindiya kelmadda Marcosna waxa laga soo gaabiyay Marine iyo Commandos waxaa la aasaasay quwaddan 1987 waxaana loo aasaasay in howlaha gaarka ah ay qabtaan halka ay ciidamadan u diyaarsan yihiin in hawshooda ay ka qabtaan badda bariga iyo hawadaba tirada askari ee ciidamadan ka tirsan ilaa maanta waxaa lagu qiyaasaa 200 oo askari laakiin cid ogi ma jirto tiradooda saxda ah xitaa qoysaskooda war kama hayn karaan qofka kaga jira ciidamadan imtixaanka laga qaado qofka doonaya inuu ka mid noqdo ciidamadan waa mid aad u adag halka laga doorto 20 shakhsi oo kaliya dhammaan dadka badan ee imtixaanka gala waxa kale oo si gaar ah lagu tababaraa ciidamadan badda gaar ahaan waxay takhasus ka haystaan sida loo burburiyo badcadbadeeda iyo si la mid ah waxay ku sheegaan argagixisada waxay kale oo ciidamadan khibrad weyn ka haystaan sida looga soo boodo hawada sare iyo ku dhuumashada badaha waaweyn ee oceanka loo yaqaano waxaanu sameeyaa askari walba oo ka tirsan ciidamadani subaxii 20 kilomitir oo orod ah iyo sidoo kale habeenkii ay gucleeyaan 20 mitir iyagoo sida miisaan 60 kilogram kadib tababarada adag waxay noqdaan kooxdaasi kuwa ugu firfircoon ee khatarta ugu weyn gaarsiin karta cadawga ka soo horjeeda sidaas la mid ahna waxay fulin karaan wax kasta oo loo diro iyagoo ka qayb galay dagaalkii Kargil War ee dhex maray India iyo Pakistan 1999 saddex ciidamada cirka wadanka Ingiriiska waxa lagu tiriyaa ciidamada cirka Ingiriiska qaar ka mid ah ciidamada adduunka ugu adag wadamo badan oo adduunka hina waxay ciidamadooda hawada u tababaraan qaabka ciidamada cirka wadanka Ingiriiska waxaana la aasaasay ciidamadan 1941 waxaana quwaddan caan ku tahay oo lagu ixtiraama qaabka ay waajibkooda uga gudato shakhsiyaadka sida gaarka ah loo beegsanayo iyo sidoo kale baxsadayaasha macluumaadka ku saabsan ciidamadan tiradooda iyo noocyada hubka ay haystaan waa arrin sir ah oo aanay cidna garanayn laakiin sidoo macluumaadkeenani sheegayo waxay ciidamadani ka kooban yihiin inta u dhaxaysa 400 ilaa 600 oo shakhsi kuwaas oo u qaybsan 4 guuto guutadiina ay ka sii kooban tahay 56 askari mid kastoo ka mid ah askartaasina wuxuu haystaa tababar ka duwan kan kale qaar ka mid ahna waxa loo tababaray sidii hogaamiye oo kale waxaanay awood u leeyihiin inay ka soo takhalusaan howlgal kasta oo loo diro qofkii doonaya inuu ka mid noqdo ciidamadani waa inuu ka diiwaan gashay yahay militariga Ingiriiska waxaana muddadiiba mar laga doortaa 200 oo askari waxaana waajib ku ah askarigu inuu isu diyaariyo qaabkii uu tusaale ahaan u geli lahaa dagaal toos ah waxaana ka mid ah noocyada tababarka ay sameeyaan inay guurguurtaan 40 mayl maalintii fanashada buuraha aadka u dhaadheer iyo inay 3 kilomitir badda ku dabaashaan iyadoo ay qasab tahay inuu meesha ku gaadho 90 ilbiriqsi oo kaliya tababarkan marka dhameystaan ciidamadu waxa la sii doortaa 54 askari oo laga sii xushay 200 ee qaatay tababarada
kamid noqoshada ciidamadani waxay u banaanayd ragga oo kaliya laakiin waxa la bedelay qaar kamid ah shuruucda ciidanka sanadii 2018 sida awgeed waxa imika kamid ah ciidamadan haweeney British ah oo inaan halkan magaceeda ka sheegi karin sababo amaan awgeed laakiin gabadhaasi waxay dhammaan ka gudubtay tababarkii adkaa iyadoo hadda waajibaadkeeda gudata 2 Polish Special Forces ciidamada gaarka ah ee Poland ciidamadan khatartahi waa qayb kamid ah ciidamada wadanka Poland sida gaarka ah u tababaro waxa lagu naanaysaa magaca dhaawacyahanada waxaana magaca loogu bixiyay tirada dabiib ee la socota lana joogta markastoo ay howlgalgalayaan sida inoo sheegayaan guutadani waxay miishan kasto loo diro ku filin karaan kalsooni iyo dhaqso waana kuwa u diyaarsan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibaato kasta oo soo wajahda waxa la aasaasay ciidamadan 1990kii waxaanay qabteen xilliga ilaa maanta howlgal gaar ah oo dunida caan ka ah sanadii 2002 askari oo ciidamadan kamid ah waxa si sir ah loo geeyay wadanka Afghanistan iyagoo markaas soo fulinaya howlgal khaas ah sidoo kalena waxay ka dagaalameen 2003 wadanka Iraq iyagoo ka barbar dagaalamay ciidamada Mareykan halkaas oo ciidamadan dhamaantood nabadqab kaga soo laabteen dagaaladii ay galeen waxaanay ciidamadani dhowr sitimaan tababaro iyo laylisyo gaar ah la sameeyeen ciidamada wadanka Mareykanka oo ay kamid tahay sirdoonka iyo qaababka loo jabsado meelaha dadka la raadinaya ku dhuntaan iyo sidoo kale tababaro nafeed iyo kuwa kale jireedba askariga aan ka gudbin tababaradaas iyo kuwa kale ee ka daranba waxa uu dib ugu laabanaya askarta caadiga ah mana u soo gudbay ciidamadan ciidamada gaarka ah ee wadanka Mareykanka ilaahay baa quwad weyn ee ciidamada ugu tunkayo quwadda weyn adduunku waa ciidamadan gaarka ah ee wadanka Mareykanka kelmadda SEAL-na waxay matalaysaa bilowga kelmado tilmaamaya noocyada tababar ay qaataan ciidamadani hadday tahay dhul iyo cir iyo badba waxaanay sidoo kale kelmaddaas u dhigantahay inay awood u leeyihiin in si la hubo ay u dhamaysanayaan howlgal kasta oo loo diro waxa la aasaasay quwaddan 1962 waxaana aasaasay madaxweynihii xilligaas ee John F Kennedy ciidamadani waxay leeyihiin awood baaxad leh waxaanay ka qayb qaateen dagaalo dhowr ah sida dagaalkii u dhaxeeyay Ciraaq iyo Iiraan iyo dagaalkii Khaliijka qofka doonaya inuu ka mid noqdo ciidamadani waa inuu diyaar u ahaado tababar jir iyo nafeed oon inaba caadi ahayn waxaana kamid ah tababaradaas sida inaad dabaal ku aadid meel ku jirta 500 oo talaabo adigoo ku tagay 15 daqiiqo oo kaliya in daqiiqadii aad ka jiri kartid ka tambushab iyo wixii ka sareeya iyo sidoo kale orod la ordayo masaafo dheer isagoo waqtiguna xadidan yahay tababaradan iyo kuwa kale oo badanba waxa marta askarta iska diiwaan gelisay ciidamadan haddii laga sii xusho ciidamadaasna waxa uu noqonayaa tababarku mid aad uga sii adag kii hore sida in hawada laga soo tuuro dagaal foolka fool ah oo xabadu toos kugu dhici karto oo gashid iyo taa mid la mid ah waxay galaan tababarka badda iyagoo gacmaha iyo luguhuba ka xirxiran yihiin ciidamadan waxa uu tababarkoodu socdaa muddo 20 bilood ah halka dhammaan dadka iska diiwaan geliya is dhiibaan waxaana sii wata tababarka boqolkiiba hal ka mid ah inta is diiwaan gelisay sidaynu markii hore xusnay waxa kaliya ciidamadan loo ogolaa inay qayb ka noqdaan raggu laakiin waxa shuruucda la bedelay sanadii 2015 waxaanay ogolaadeen inay dumarku ka mid noqon karaan ciidankan waxaana jirtay haweeney islahayd ka qayb gal ciidamadan laakiin markay aragtay tababarada qaabkan ah way iskaga baxday wadan gaarka ah ee Mareykanku leeyahay waxa lagu xasuustaa dilkii ay dileen Osama bin Laden waxaana ciidamada lagu tilmaamaa inaanay jirin howlgal aanay fulin karin daawadayaal xalqadeena maanta intaas ayay ku eegtahay haddaad ka heshay muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada subscribe na taabo oo nagu soo biiri si aad ula socotid muuqaalada dambe soo galino